أنا وحلي هذا محمد محمود جمي وجبلي وجه كاونت نور الدين حاجي وفساد ويلي سان لواركن on hadda ka hor xumaan kala soo marnay maana dhawatay in darajo la siiyay darajada ayadeedna min reer Kenya ay ka qayliyeen annaka Soomaalida noola jeeda waxaan rabnaa inaan guntano on annaka aan brace aan qabanno on hadalno shalay oo dhamaalay u hadlayeen ay ka hadlayeen oo yiraahdeen iyo muuto abana istaahili naana istaahili waa marka ninkii waxaday miya istaahila kanay waxba ma hadin aabiisna waxba ma hadin markii mooy aad joogay ayaa la siiyay ninkanay wasiirka internal security ilaa haddadan maka 30 ayuu ahay nin BC oo Rift Valley oo dhamaala 19 district maalintaas ay county ma jirin ayaa asgacanta ku hay abadkaas xumaan laga ma sheegin marka sidaas awgeed waxaan leeyahay ninkeena markii jagal la siiyo nimankan waa buuqaan waa noola diidaa waa nagala hor joogsadaa jagadan waa jago fiican waxaan rabnaa meel walba oo joogna Madera ilaa Garissa ilaa Nairobi dhexdeeda in gaaseed la qoro oo la hadla oo la bingeeye nimanka UN-ka oo ninkaanay hortaagan raggaas asaga maahayna rag kala ka dambeeyo oo wada oo gadaal ka riixa sidaas awadeed waxaan leeyahay eko Ruto كيف أنا تبتي سيسي مركا حانو لنا يا أسكن أسبقن أنك الصومالي هذان هنا يسمى هيلنا قبيل لمي وحنجرين يقولون كل قنا أبيس نين قبيل لميهن أسكن قديس ونين قبيل الآن لهن عنقاسير أد بوشقيا وأنا السدائية أد وتا كلن كسبسن inaan gacan siino oo mahad u celina madaxweynaha ilaaha mahad u celinayna ka soo waxaan mahad u celinaynaa madaxweynaha Kenya oo maalintii u dambeysay Nuurdiin Xaaji u magacaabay idaaradda sirdoonka madaxweynaha aad ayuu u mahadsan yahay jagooyin fara badan ayuu siiyay tii u dambeysay waxay ahayd midda Nuurdiin Xaaji uu inoo siiyay Nuurdiin waa nin khibrad leh waa nin wadanka waqti badan ka soo shaqeeyay aabihiis janna Allah geliyo sida camal waqti badan ayuu Kenya taariikh u kaleeyahay hasa anaga Soomaali markaan nahay taariikh ayaan ka leenahay Kenya waqtigii madaxweynaha uu ka ahay ninka la dhahaa Aramoy Afgambi ayaa ka dhici rabay Afgambiga asaga ahay ninka ka hortagay wuxuu ahay nin Soomaali oo General Maxamuud la dhahaa ninka ciidamada booliiska weynayna wuxuu ahay Major Hussein soo aniga waxaan leeyahay tii maalin dhaweyd u dambeysay doorashadii oo la joogay Bomas qalalasadii ka dhici rabtay ninka gacanta ku dhagay oo laacay wuxuu ahay Nuur Gabo soo anaga dad baan naqaqashay oo Kenya Soomaalida inay wax ka ahaataba aan doonayn taariikhdayna sidaas ay u qorantay raga ayada waxaan leeyahay ragaanayta la leeyahay human right ama international waxa sayta la leeyahay dad baa adeegsanahay oo u adeegsanahay Soomaali inay waxba ay ka noqon Kenya waa diidanahay anaga Soomaali anaga hadaan nahay waa soo joodnaa raga madaxda oo Soomaali waxaan leeyahay isku duubsanaada nafaas yaan lidinka helin hal mid ahaada wiilkaas jagadiisana madaxweynaha aad ayaan ugu mahad celinaynaa waxay ku maamahdaa Soomaalidu abaalka aabaha gale 40 sano ayaa la cunaa ayaa leeyahay ninkan horta aabihiis ayaa maartay wadankan ka soo ahay madax abaal badanna u galay wadanka waxaan ogsoonahay countiyalkan ka hore inaad BC ahaan jiri Yusuf Xaaji oo ilaa 16 district ama 17 district 19 district asaga ay hoos imaadayeen waxa kale oo ogsoonahay in hadda kor wasiirka difaaca aad soo noqday Yusuf Xaaji marka wadankan Yusuf Xaaji waxa isku lahay sumcad aad weyn ama magacaadi aad u sareeya shaqadiisana waxay ahayd shaqo lagu kalsoon yahay nadiif ah hadda marka asgeeriyoodayna shaqo ayaad wadan ku hay oo nin oo banaanka ka jooga meen asoo sanata ayaad asgeeriyooday saawgeed annaka hadii aan shacabka gobolka waqooyi bari waan ku kalsoonahay jeegada la sii Nuurdiin Xaaji aad baan ugu kalsoonahay waana soo dhaweynayna waxaan leenahay shacabka Kenyaanka ah oo ka daba buuqaya maanta oo Nuurdiin u diidan jeegada la sii ha ogolaadeen way ku qasbiin inay ogolaadaan maxay ninkan waa nin Kenyaan ah waa nimad aabiis wadankan shaqo ka soo hay oo aabiis 40 sano in ka badan aad madax ahay waa inay ogolaadaan qof kasta oo Kenyaan ahna xaq baad u leeyahay wadanka in jeega laga siiyo qof kasto aamin ah inaad shaqada sii hayeen xaq baad u leeyahay waana nin aamin oo ku kalsoonahay waxa kale oo ugu baaqa
gobolka waqooyi bari shacabka ku nool dhammaanteen hal far baan nahay haddii hal qof oo waqooyi bari ka soo jeedo jeega noola siiyo dhammaanteen waana la sii waanana mathalaa waana ku kalsoonnaa marka waxaan rabnaa annako in aan arrintaas dadka ka hor imaasan nuurudiin maanta jeegada la sii inaan ka hor imaadno gacan beerar ku qabanno waqooyi bari hal qof aan noqonno oo ninkaan aan u teetayno oon garab istaagno walaalkay nuurudiin waxaas mathalaa marka aad fiiriso muslimiinta Kenya waxaad mathalaa gobolka waqooyi bari Soomaalida ku nool baad mathalaa annaka ayaadna mathalaa marka waa inaan walaalkeen garab istaagno waana aaminsanahay waana ku kalsoonahay madaxweynaha waddankan waxaan leenahay hambalyo dawladda Kenya jagooyinka annaka ayna siisay Soomaali haddii nahnay Soomaalida noo distaan annaka jagayaal fara badan aana la siiyay waana mahad celinay aad baan u mahad celinay hadda ka hor haddana aad aan u mahad celinaynaa ilaa wiilkeena Nuurdiin Xaaji aala siiyay jagada sirdoonka ugu weyn Kenya dhamaala aala siiyay annaka maadaama aan Soomaali nahnay jagooyinka idaala oo Kenya oo security ku saabsanay Soomaaliya la siiyay waxa loo siiyay Soomaali inay taas ida qaban karta oo ina fikir u leedahay say waxa wax walba baa noola siiyay annaka reer noodisan haddaan nahnay aan midowna aan heshiina aan ka heshiina xagga nabadda dawladda aan la shaqeyna security-geena annaka aan gacanta ku qabanna maadaama wiilasheena ay madax yihiin oo security madax ka yihiin annakana aan la shaqeyna sifa aan annakana nabaddeena aan ku ilaalin Nuurdiin Xaaji dad baa ka daba buuqahay oo hadda dhihaya jagadaas ma istaahila dadka ayakana dad baa adeegsanhay oo jagooyinka ayaka jagada iida rabeen waxaan leeyahay Nuurdiin jagada iida xifradaas u leeyahay waa akhristay waa nin soo jooda annaka reer wajeer haddaan nahnay aan isla hadalna oo wixii ammaankeena halaynaayana aan fiirina madaxweynaha Kenya mahad weyn aan u celinaynaa reer noodisan haddii nahnay jagooyin badan aadna siiyey gabar BS ana la siiyey defense minister ana la siiyey DCI ninka weyn annakana la siiyey gabadheena women reebta zamaani hatta hadda waa director waa meel la siiyey waa commissioner meel la siiyey jagooyinka Kenya maanta baarlamaanka Kenya ximin weyn aan ka leenahay maadaama aan saas nahnay annakana inaan isxishmayno Soomaali haddii nahnaa fiican oo hebelo waa la siiyay hebel la siiyay aan dhihin gacanta aan isqabsana in madaxweynaha waddanka Kenya loo mahad celiya jagada aad siiyo ugu sareyso Nuurdiin oo sirdoonka Kenya ugu sareey laga dhigi taas waa xishmad weyn oo aad iyo aad weyn waa inaan aad iyo aad madaxweynaha ugu mahad celina haddii nahnay dadkii Northern Kenya deganay aan madaxweynaha aad iyo aad aan bonkesi u dhaano waxaan meesha u soo fariisanay oo kala madaxweynaha waxiisna siiyay ma iloobayna waxaadna sii jaga hore aan noola siinin oo ninka ugu sareeya security oo wasiirka annagaana la siiyay aadaan ugu mahad celinayna ninka criminal investigation ugu sareeya annagaana la siiyay waa aadaan ugu mahad celinayna ninka hadda sirdoonka ugu sareeya jagoodinkaas waa jagoodin aad iyo aad weyn madaxweynaha aad iyo aadaan ugu mahad celinayna waana mataqana waxaan leenahay madaxweynaha hadda ka horna ma soo marin madaxweyne saan oo kale noo xishmeeyay waxaan leenahay Mr Ruto 2027 kuraha waqooyi Kenya waa kaada nimaas ugu cabsanaysa male annaga waa ku midowni haddaan aan Soomaali waa ku midowni waxa adigaana ku dabakaceynaa adaana la imaaday waxaasna tustay wadanimo cad oo aan wala gacan bidxayna birigoor waxaan leeyahay annaga ma jalalaysaanahay annaga hoosaan noola reebay jagoodinka weyna ma siinay madaxweynaha waxaasna siiyay jagoodinkii awal horeetay aan wiligeena la siin waxaan leenahay dhalinyarta iideedna haddadaasha madaxweynaha waxa la qabteena wadanka shaqaha u qabteena aad iyo aadaas madaxweynaha u mahadsan yahay